bismillaah assalaamu calaykum dhammaan walaalaha ku xiran janalka daaca tube waxaad kusoo dhawaataan muuqaal cusub oo aynu kaga hadli doono 11 talaabadood oo kaaga dhigaya sanadka cusub ee 2021 sanadkii ugu wanaagsanaa ee noloshaada. balse inta aynu gudagelin muuqaalkan, haddii ay tahay markii kugu horeyso aad soo booqato janalkan, waxaan kaa codsanayaa in aad subscribe saarto gambaleelkana aad furato si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela muuqaalada aan soo gelino halkan. sidoo kalena aad like inagu dhiirigeliso muuqaalkana aad la wadaagto asxaabtaada, dhanka iyo commentigana waa xaqiina. kuna soo dhawaada muuqaalka oo dhameystiran. waxaa dhici karta in sanadkii hore ee 2020 uu kuu ahaa mid aan kuu wanaagsanin, mar walba aad soo xasuusato ama aad dib u milicsatana aad ka weydo wax wanaag ah oo aad ku xasuusato oo farxad gaar ah ku leh. warka farxadda leh ayaa ah in uusan mar kale dib kugu soo laabanaynin sanadkii tagay. intaad ka murugan lahayd wixii tagay, waxaa kugu habboon inaad ku fikirto xaaladda maanta iyo waxa aad qabsan karto sanadka cusub ee 2021 si aad firfircooni ku hesho waxyaabaha ugu yaryar ee kuu qabsooma. ku farax roob yar haddii uu ka da'o goob aad joogto, ku farax nimcadda alle iyo neecawda macaan ee aad ka helayso. muhiimaddu waa sidaad uga baxdo mugdiga sanadkii hore, wanaagga iyo dadiilada sanadka cusubna aad ugu diyaargarowdo. haddaba waxaan kula wadaagayaa 11 talaabadood oo kaa garab siinaysa inaad sanadka cusub ku qaadato farxad, rayreen iyo dadiilo wanaagsan, maadaama aad doonayso in sanadkii ku dhaafay aad ku ilowdo midkan cusub ee hadda bilowga ah. qodobka koowaad ee warbixinteena waxay tahay: beri hala sugin howlahaaga ee haddaba qabo. haddii aad qorshe cusub hayso, waxba ha sugin, hadda horey ka bilow. ma doonaysaa inaad shay cusub tijaabiso? hadda ka bilow. beri hala sugin howlaha ee hadda horey ka qabso. markay wax kuu hergalaan waxaad ku farxi doontaa shaqada kuu qabsoontay. qodobka labaad wuxuu noqonayaa naftaada jeclaaw. waxaa dhici karta in weedhaana ay tahay markii ugu horeysay ee aad maqasho noloshaada. ogow, waa weedh aad u qiimo badan. waxaa dhici karta in dadkii horey u maqlay xitaa fahamkeedu uu hareer maray. weedhan waxaa loola jeedaa inaadan caban marka dhaliil gooni ah uu jirkaaga leeyahay. ogow inaan nahay dad xaqiiqo ah ee aanan ahayn sawir sidii la rabo loo bedela. sidaa darteeda waxaa habboon inaad naftaada ku aqbasho qaabka uu Allah subxaanahu wa tacaala u abuuray. waxaad ogaataa in qof kuu dhigma aanu jirin. naftaadana jeclaaw mar walba. qodobka saddexaad, ku faan naftaada. halkan micnaheedu ma ahan kibir iyo faajo. naftaada qiimaheeda dareen oo qadari. marka aad dalacsiin hesho ama aad dhar cusub soo iibsato, dareen in aad tahay qof cajiib ah. isku day naftaada in aadan marnaba yareysan oo aadan isku arkin in aad dadka kale ka hooseyso. waxba kuma jabna inaad guulahaaga ku faraxdo marka aad dadaalkaaga ku gaarto. qodobka afaraad wuxuu noqonayaa kanaso baraha bulshada. cidina ma inkirsana in baraha bulshadu ay ka mid noqdeen nolol maalmeedkeena. in badan oo inaga mid ah inta badan kuma baraarugsanin waqtiga inagaga luma baraha bulshadu. halkaas waxaan kaga gaabinaa oo aan waqti u weynaa waxyaabo badan oo muhiim inoo ah oo aan qabsan lahayn. qodobka shanaad wuxuu noqonayaa xooga saar ceebaha aad leedahay. noqo qof horumar wanaagsan sameeya. ceebahaaga xooga saar sidii aad ku dabooli lahayd oo aad isku hagaajin lahayd. dadka kale ceebahooda haraadin. isku day inaad fahanto qisada dadka kale oo aad dhagaysato sida uu yahayna aad ku aqbasho. xukunada aad dadka kale ku ridayso fikirkaaga u niyeyna noqon. markaa qof wanaagsan noqo inta aad kari karto. qodobka lixaad waxay tahay lacagtaada ha ku ciyaarin. haddii taleefon cusub uu suuqa soo galo ama dhar faashion ah ay yimaadaan oo dukaan aad jeceshahay ama aad macaamiil u tahay uu keeno, dhammaan waa arrimo soo jiidasho leh oo aan la xakameyn karin. isku day in aad mar walba lacagtaada ka taxadirto oo aadan ku ciyaarin. wixii daruuri ah aad ku iibsato. maalgashigana baro si aad wax badan ugu maalgashato lacagtaada. isku day lacagtaada in aadan si fudud ku bixin. qodobka toddobaad wuxuu noqonayaa gurigaaga rinjiga ka bedel. xilliyada qaar waxaa dhacda sawir derbiga inoogu dhegan inuu dib inoo xasuusiyo waxyaabo badan oo aad isku dayayso inaad ilowdo. ha u ogolaan in waxyaabahaas ay qalqalgeliyaan xasiloonidaada gudaha. waxaa habboon inaad beddesho diikoorka iyo rinjiga qolka aad degan tahay iyo guriga guud ahaan.
qodobka sideedaad waxa ay tahay noqo qof firfircoon, labada lugood dib ugu istaag, hawl kasta oo qabyo kuu ah ama mid lagaa rabo ee waajibka ah, shayna dib ha ugu dhigan. haddii hawluhu isku kaabiiraan tashuush ayay kugu furayaan, meel aad wax ka bilowdana way kugu adkaanaysaa. qodobka sagaalaad waa khatar u bareer, naftaada xayndaab gooni ah ha ku xirin, isku day in aad dhadhamiso waxyaabaha mustaxiilka ah si aad u dhabayso, isbeddelna sameey. haddii aad wax cusub tijaabin waxba kuma suurtagalayaan, micnaha guusha si aad ku dhadhamisaa way kugu adkaanaysaa. qodobka 10aad waa wax jeclaaw adigana ha lagu jeclaado, horay u soco oo jaceylka faafi, dadka yaryar u naxariiso, dadka kaa weynna ixtiraam, nolosha oo dhan jeclaaw, qofka qalbiga waxba ha ugu haynin, qof kadsoon ha noqon, damacna naftaada kala dagaalan, qof bulshada fasahaadiyana ha noqon. qodobka ugu dambeeya ee warbixinteena waa qodobka 11aad, noqo qof mahadcelin badan, wax walba aad haysato ka mahadceli, awaal walba oo lagu galo mahadcelin la'aan yaanu kuu dhaafin, si kasta oo u yaryahay. naftaada marnaba qiimo dilin, waxaan nahay aadane, nolosheenu way kooban tahay, sidaa darteeda waa inaad ku faraxdo hadiyad walba oo aad hesho, qiimay ilbiriqsi kasta oo noloshaada ka mid ah.